بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdullaahi Raage waxaan dhaqaalaha iyo siyaasadda ka bartay jaamacadda Amuud sidoo kale waxaan ku shaqeeyaa ama ka shaqeeyaa turjumaadda iyo arrimaha la xiriira barnaamijkan macadka heritage soo abaabulay shirka sanadlaha oo sanadkan laba jeer qabsoomay marna Jabuuti ka qabsoomay marna sanadkiina soo dhaafay qaybtiisii dambe iyo sanadkan qaybtiisii hore oo isku dhameystirmay waxaan kaga soo qayb galay warqad ka hadlaysa hal abuurada dhalinyarta in loo arko agab iyo farsamooyin lagu abuuri karo maxaa la yiraahdaa islaahaasho bulsho ama isku duubni bulsho lagu abuuri karo in loo eego mawduucaasi oo doodeeda ay laba qodob ay ku qotantay labada qodob oo ka soo shidaal qaadanaya khibraddeeda shakhsiga iyo dhinaca ka shaqeeyo waxa ku doodaya in dhalinyarta markii dagaaladii Sokeeye dhaceen kadib waxyaabihii mataqaanaa shaacsanayaasha ama phenomenon soo baxay ka mid ah in dhalinyartu abuureen farsamooyin cusub oo ay wacyi ku wadaagaan taas oo wax ka tari karta in dooda la wadaago sheekada la wadaago dabadeetana bulshadu isfahanto iskarato kadibna ay abuuranto maxaan ku raahdaa yani ogaal la wadaagi karo oo isku duubni bulsho isfahan dabadeedna isku duubni bulsho abuuri kara doodaasi waxaan hordhac uga dhigay horta inaan ka warramo in dagaalada Sokeeye iyo dawlad burburku waxyaabaha ay saameeyeen ka ahayd inay magaalooyinka burburaan yani maadaama burburaan kaliya maaha in sidoo kale burburaan reer magaalnimadu laftirkeeda ay burburto magaalooyinka waaweyn laga qaxo magaalooyin cusub abuurmaan ama kuwa hore u jiro yar yar ay weynaadaan sidoo kale reer maxaan ku raahdaa dad badan ay ka soo guuraan nolosha reer guuraanimada ama reer baadiyenimada ama xoolo dhaqatanimada reer magaal noqdaan marka isbedelka ku dhacay reer magaalnimada iyo masaaxadii magaalada ee dadka u suurta gelinaysay inay khibradda wadaagaan oo ay dhaqan reer magaal yeeshaan ay baabaaday kalsooni darro dagaaladii Sokeeye iyo qaxwo keenay ay timiday saddexna waxa ku noqday inuu xayndaabiyo siyaasadeed iyo dhaqan oo yaryar ay abuurmeen oo meel kasta maamul ka dhisan yahay wuxuu ka abuuraya dhaqan iyo wacyi gooniya marka xayndaabyadaas oo dhan abuurmid iyagoo jira ayaa waxaan ku doodayaa dhalinyartii xaaladda dagaalka Sokeeye ku kortay ama ku dhalatay inay abuureen farsamooyin ay wacyi ku wadaagaan haddii tahay qoraalkii turjumaadda naadiyada akhriska iyo bandhigyada buugaagta ee dalka oo dhan ama geyga Soomaalida oo dhan gaarsiiya fariinta marka barnaamijyada noocaas ayaa sifeeyay aniga ku dooday inay ka duwan yihiin barnaamijyada hore dhalinyarta lagu yaqaanay sida fanka iyo ciyaaraha oo labadooduba madadaalo awoodda saaraya halka halaburradan casriga dhalinyarta wacyiga awoodda saarayaan iyo ogaalka iyo cid waliba inay ra'yigeeda iyo aragtideeda iyo dareenkeeda gudbiso si dadka kale iyaguna ku gudbiyaan marka qoraal ku gudbiyaan doodo ku gudbiyaan shirar ku gudbiyaan sida mesela waxaan tiriyay magaalooyinka waaweyn Soomaalida bandhigyada ka dhacay sanadlaha kasoo bilowbora ma Hargeysa ilaa iyo ku gee Kismaayo Jabuuti ilaa ku gee ilaa Boosaaso oo maanta umada ka socda ku gee marka meelahaas oo dhan sida wax uga dhacanaya soo kobceen iyo xasaan iyo marxaladii ay soo kordheen ayaa ka warramay waxa ku dooday marka halaburrada ay farsamooyinka dhalinyarta ee cusub wacyiga la xiriira ee ka duwan ciyaaraha iyo fanka ka duwan inuu aragti la wadaago ku fadhiya inay u baahan yihiin la maalgashado in la ballaariyo in wax lagu dul dhiso in maxaan ku raahdaa kaabayaal loo fidiyo taasi baa keeni karta in wacyi cusub oo abuurmo oo wadaag ah oo maxaan ku raahdaa sahli kara wada noolaasho iyo dhaqanka nabadda in la kobciyo iyo sidoo kale isku duubni bulshada la abuuro aad baad mahadsantihiin